khilaafkii ugu xooganaa oo soo kala dhex galay nabad iyo nolol. maxay isku hayaan Cali Yare iyo Fahad Yaasiin? Cali Jeete oo cunaqabateyn saaray dadka degan deegaanada dhaca koonfurta Beledweyne iyo ra'iisul wasaare Xamse oo wada qorshihii ugu dambeeyay oo isku shaandheen oo ku sameynayo golihiisa wasiirada. qodobadan ayaad warka kulmiye show ku daawan doontaan. mar kale soo dhawaada daawada fadlan, waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo birto haddaad nagu cusub tahay, muuqaalkana share garay si dad badan u gaaro. aynu ku bilowno. waxaa soo baxaya warar hoose oo sheegaya in xilligan uu jiro khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay xisbiga nabad iyo nolol ee uu hogaamiyo madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo hadda khilaafkan uu u muuqdo mid si tartiib banaanka u soo baxaya. xogaha la helayo waxay sheegayaan in khilaafkan xoogiisa uu yimid kadib markii kooxdan ay isku fahmi waayeen qorshe ballaaran oo la doonayo in loo wajaho dowladda federaalka ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud. kulan ka dhacay magaalada Dooxa oo u muuqday in lagu heshiiyay qorshe weyn oo lala damacsanaa in kooxda ay ku mucaarado dowladda federaalka ah, ayaa haddana la sheegay in isbeddel uu yimid kadib markii Farmaajo diiday qodobada qaar oo horey uu aqbalay. agaasimihii hore ee Nisa Fahad Yaasiin iyo xubno kale ayaa la sheegay inay durba ka caroodeen go'aanka Farmaajo, taasoo soo dedejisay khilaafkan. gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga gobolka Banaadir Cali Yare Cali oo ka mid ah aasaasyaashii nabad iyo nolol, sidoo kalena ahaa shakhsi aad ula soo halgamay madaxweyne hore Farmaajo, lana aaminsan yahay inay saaxiib dhow yihiin, ayaa qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay Facebook. waxa uu si dadban kaga hadlay khilaaf ka jira, welibana waxa uu bilaabay qormo taxano noqon doonta oo uu qaybteedii koowaad baahiyay. sida ka muuqata qoraalka, Cali Yare ayaa aad u dhaliilaya Fahad Yaasiin iyo kooxdiisa, sidoo kalena qoraalkan waxaa ka horeeyay mid kale oo uu ku weeraray xubno ka mid ahaa nabad iyo nolol. maadaama Cali Yare uu ahaa garabkii Farmaajo, welibana wax badan uu ka saaciday, ayay falanqeeyayaashu sheegeen in weli Cali aanu saaxiibkiisii Farmaajo wadda uga tagin, maadaama markii horeba aanu dan gaar ah kula saaxiibin sida xubnaha qaar ee nabad iyo nolol. waa suuragal inay soo baxaan xogo kale oo dheeraad ah misna ku saabsan khilaafkan baahay, sidoo kalena waxaa laga yaabaa in garabka Fahad Yaasiin ay iyaguna bilaabaan qormooyin lid ku ah dhanka kale. warka kulmiye show ayaa daawanaysaan daawadayaal. markana gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa ku dhawaaqay go'aan culus oo ka dhana argagixisada Al-Shabaab, kuwaasoo ku sugan deegaanada dhaca koonfurta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka. Cali Jeete ayaa ku amray gaadiidleyda ka baxa Beledweyne iyo Bulaburde in aysan aadi karin dhanka deegaanadaasi oo dhaca jiinka webiga Shabeelle. sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in maanta kadib aan la arki karin gaari raashin sida ama shidaal oo u safraya deegaanada ku yaala hareeraha webiga Shabeelle. gudoomiyaha ayaa sidoo kale xusay in tallaab adag ay ka qaadi doonaan gaadiidleyda ku xadgudba amarkan, isla markaana ay la wareegi doonaan gaariga iyo wixii saaranba. Jeete ayaa amar buuxa siiyay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka, isaga oo faray inay dhaqan geliyaan go'aanka xayiraadaha ee uu maanta soo rogay. waxa uu yidhi ciidamada waxay amar ku qabaan inay si buuxda ula wareegaan gaarigii ay qabtaan isagoo u raran deegaanada shabaab ku sugan yihiin ee ku yaala hareeraha jiinka webiga Shabeelle ee qawaarijta saadka u geeya. qof walba haatan gaarigiisa ha ilaashado, ayuu yidhi Cali Jeete. waxaa kaloo uu intaasi raaciyay, aniga beer ayaan ku leeyahay degmada Halgan, mana tabcan karo marka dad shabaab dhexdiisa beeraha ku tabcadaa soo shabaab kalkaal ma ahan. dhanka kale go'aankan ayaa saameyn weyn ku yeelan kara haddii uu hirgalo xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ku sugan jiinka webiga Shabeelle ee duleedka Beledweyne. galbeedka Hiiraan ayaa waxaa haatan ka socda howlgallo culus oo ka dhan ah Al-Shabaab, kaas oo qorshaha uu yahay in kooxda looga saaro deegaanada ay ka joogaan halkaasi. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wada qorshe ballaaran oo uu ku doonayo in uu isku shaandheen ku sameeyo golihiisa wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, sida xogaha hoose lagu helay. qorshaha oo socday ku dhawaad 4 bil ayaa dib u dhac waxa uu keenay mooshinkii la sheegay in laga waday xukuumadda, kaas oo ugu dambeyn ay madaxda dowladda gaar ahaan madaxweyne Xasan iyo ra'iisul wasaare Xamse ku guuleysteen inay kala furfuraan xildhibaanadii waday. sida aan ogaanay in wasiirada la isku shaandheeyo waxaa dalbaday madaxweynaha, maadaama muddada ay wasiirada shaqeynayeen ee ku dhow sanad la ogaaday mid walba shaqada uu qaban karo iyo cidda ka soo baxday mas'uuliyaddii loo dhiibay. waa macquul in wax badan laga bedelo golaha wasiirada, qaarkood boosaska ayaa loo kala bedeli doonaa, halka kuwa qaarna la sheegay in gabi ahaanba ay xilka waayi doonaan. saameynta ugu weyn ee isku shaandheyntan waxay ku yeelan doontaa wasiirada loo yaqaano kuwa eega ah, iyada oo badi xilka laga qaadi doono, kuwa cusubna la keeni doono. waa sida uu qorshaha u yahay. labadii cisho ee lasoo dhaafay waxaa dhowr jeer arrintani ka kulmay madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse, waxaana weli socda isku aadinta xubnaha cusub ee imaan doona iyo kuwa xilalka loo kala bedeli doono. inkastoo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse lagu dhaliilo in aanu ahayn waxqabadkeedii sidii loo baahnaa marka loo eego wasiirada qaar, haddana ra'iisul wasaaraha ayaa la aaminsan yahay inuu isbeddel muuqda sameeyay, sidoo kalena yahay shakhsi shaqo yaqaan ah
oo haddii uu helo wasiiro sidiisa oo kale uu dalka isbedel weyn geli doono. daawade aragtidaada fadlan qaybta hoose commentiga inoogu reeb. waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto muuqaalkana noo share garay si dad badan u gaara. mahadsanid.